maalin buu nabigeenu alayhi salaatu wasalaam miskiidku soo galay wuxuu arkay nin reer baadiye ah oo salaad tukanaya oo salaadii dhexdeedana ku ducaysanaya uu istaagay nabigu markaa ducadii uu dhageystay waa duco cajiib ah duco boqolkii 90 waa ilaahay ammaantiisa yaa man laa taraahu alcuyuun walaa tukhaliduhu addunuun walaa yasifuhu alwaasifuun walaa tugayiruhu alxawaadith walaa yakhsha addawaa'ir yaa man yaclamu mathaaqiila aljibaal ilaa aakhirkayga markaabuu nabigu yidhi Abu Muusa al-Ashcari buu u yeedhay wuxuu ku yidhi ninkaa ducada markuu dhammeeyo ii keen buu ka yidhi markaabaa loo yeedhay ninkii nabigaa ku doonayana marxaba markaabuu nabigu sal alla alay wasalam hanimo markaa la soo qaaday oo xoolo markaa uu qaybinayey ayuu kiish lacaga intuu ka soo dhex qaaday buu nabigu ninkii gacanta kaga riday nin baahan oo faqiir oo reer baadiye ah oo kuus lacaga loo dhiibay ka warrama saasuu u qallibay uu farxay markaabuu nabigu ku yidhi lacagta sababta aan kuu siiyey maad garan buu ka yidhi markaasuu yidhi haa maxaad u malay inaan kuu siiyey dee tolnimaad ii siisay buu yidhi markaabuu nabigu ku yidhi waa runta raximkuna xaq way leeyihiin in wax laysku siiye laakiin lacagtan ujeeddadaan kuu siiyey waxa weeyaan bixusni hanaa'ika cala allah sidaad haddeertoon ilaahay aad u ammaanaysay ayaa ku farxay buu rasuulku yidhi taa darteed baana kuu siiyey buu yidhi sidaad ilaahay u baryaysay sidaad ilaahay u ammaanaysay waayo maqsuudka nebiyada adduunyada loo keenay baa ahaa inay bini aadanka ilaahay ku xidhaan markuu arkay nebigu shaqadiisii oo socotaa uu ku farxay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadna uu siiyey tacalluqa ilaahay dadku ay leeyihiin baa nebiga agtiisa ku weyne lacagtu agtiisa kuma weyno xataa fii siirati cumar waxaa ku taalla hanimadii ayuu maalin maalmaha ka mida cumar dul fadhiistay markaasuu u qaybinaya saxaabada markaasuu arkay nin yaroo gacan go-an markaasuu yidhi gacantan maxaa kaa gooye buulo wuxuu hi qaswadii halkaas ahay ayaa dhaawacan la ii geystay buulo ku dhaawacmay markaasuu lacagtiibuu cumar soo qaaday kun buu siiyey kun kale ugu daray haddana markaasuu cumar u qaybiyaa isagana weli meeshuu taagay oo lacagtii buu tirsanaya markaasuu cumar ninkii isha ku dhiftay haddana mar labaad mar alle markuu dhaawacii arko ayuu soo qaadaa kun kaluu haddana siiya markaasuu cumar haddana u qaybiyaa markaabuu haddana isha ku dhiftaa halka yarka gacanta dhaawacu kaga dhacay markaabuu kun kale qaado uu tiriyaa uu siiya mar dambuu cumar marka uu waaya ki yaraa markaasaa lagu yidhi cumar baa war ninkii meesha joogay mey waxaa la yidhi xoolaha aad siisay badnideeda ayuu la dawakhay uu ka socday meeshii wallaahi baan ku dhaartay buri cumar binu khadaab hadduu ninkaa halkaa sii joogi lahaa oo ishaydu mar walba naburkaa diinta ilaaha loogu dhaawacay ishaydu ku dhici lahayd xoolaha halkaa ayaa la isagaa ku dhammayn lahaa buuli manin ilaahay dartii u cawirmay oo diinta dadaalkeega iyo koryeelkeega iyo difaaceega loo dhaawacay baan adduunyo ka haysan buuri anigu may wallahi waan ku bixin lahaa buri wax meesha yaallo dhanba dadku inay ilaahay jalla wacalaa ku xidhmaan baa muhiimaddu ay tahay jannada dhan ee adduunyaduna waa ilaahay macrifadiisa imaam ghazaali raximahullah ayaa odhan jiray jannada adduunyadu waa ilaahay macrifadiisa ilaahay garo bas sirta noloshaan raadinayaa bay koodhan soomaalidu iminka xaggeed ka raadin dhoof xaggeed ka raadin lacag baan samaynayaa lacag sirta noloshu raggii fahmay baa kuu sheegaya dhegayso imaam ghazaali raximahullah wuxuu yidhi jannada adduunyada ninkii doonayow waa ilaahay macrifadiisa hal jannada aakhiraduna waa ilaahay aragtidiisa bas laakiin nabigu lahaa sal alla alay wasalam ahla aljannahu markay jannada galaan ilaahay baa ku oran doona turiiduuna shay-an aziidukum ma rabtaan shay kale oo jannada ahay wax kale oo jannada ahayn oo aan iniigu daro markaasay ahlu jannuhu odhanayaan alam tubayid wujuuhana wa tudkhilna aljannata wa tunajjina min annaar yaa rabbi miyaad wajiyaashayda noo caddaynin oo naartaadii naga badbaadin oo jannadaadina aadna gelinin ma wax jannada ka fadli badan baa noo haray fayakshifu alxijaabu nebigu
إلهي وحسك قاضي حجابك فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم بالنبي يقولي أهل الجنة لمسي من وحضوا باللغة القعيلة بدنيهي إلهي جل وعلا داوشديس مرك إلهي داتديس أي أركان إلهي الجمال كيس جل وعلا إيا كمال كيس مرك الجنة بحديدة كو أركان جنة أي كو جرين يحور العينتي وحلمام ينبع مرك الجنة أدو يدو وإلهي معرفة ديسا نرشنا أدو يد السرت يدو معي إلهي قرأ إلهي قرأ معنى يدو معي مقصود كي وجدت أدو يد اللغو كان قرأ هدف اللغو كان قرأ هدف اللغو كان ومعي إلهي عبد إلهي بري إلهي بعيد على وشيبه إلهي ويديسو عدك لو وحدها ويديسن إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك هذا ويديسن ونبي قول يا إلهي وحويديسو